nimanka dastuurka baarlamaanka isku daya inay xalliyaan dastuur waa ku ordinay xildhibaanow dalka iyo dadka ma fadhiya nabadgelyada ka shaqeeya oo nabadgelyada ilaahay baa keeni karee waxa weeye hadda ka hor baa waxaa la jiray looma sinna rag iyo dumarka maanta waa maalin soo qaad waa maalin ilaahay oo xaaladdeeda ogtahay waxaa u daran farida daan ka hadlo midda maanta taagan ma aha dastuur in la hadlayo oo masuur lagu wareero ma aha dastuurka maanta ma aha maalinteeda kale uu bannaan yahay weeye sababtoo ah waddanka dagaal buu ku jiraa dagaalka uu ku jiro iyadoon la xallinin oo degmooyinkii iyo gobolka aan isu furin oo gobollada isu furnayn oo aan nabad aynay jirin in la yidhaahdo dastuur baan ansixinaynaa suurtagal maaha fikirkayga haddaan uga hadalno saas aawadeed waxaan codsan lahaa oon ku baaqi lahaa oon bulshada iyo dadweynaha iyo baarlamaankaba u sheegaynaa inay joojiyaan qaska waxaan ahayn kama imaanaye in la xalliyo dadka agoomaha iyo dagaalka ku jiro xallintooda in la xalliyo marka ugu horrayso kow gobolka marka la xalliyo oo degmada la xalliyo oo nabadgelyada la xalliyo markaa ka bacdi inay noqdaan wixii oo macnaha wax loo samaynaya inay noqdaan saas aawadeed waxaa weeye muxuu ahaa in la joojiyo dastuurkaan la ansixinay maxaa lagu ansixinaya horta fadhiba ma jiro meel nabadaba ma jirto ciidamadii iyo agoommadii ay dhaleen oo wax odhan oo dagaal ku jiro habeen walba dagaal baa dhacayo labada shabeello ugu daran meel walba ugu daran gobol walba ugu daran gobollada kale iska badaa gobolladii kale oo ka maqnaan ka daran meel fiyow lama arko saas aawadeed baan waxaa dastuur la yidhaha loo xallin karin nimanka dastuurka baarlamaanka isku daya inay xalliyaan dastuur waa ku ordinay waxaad xallisaan arrimaha ciidamada arrimaha nabadgelyada arrimaha jidadka iyo waddooyinka xiran waxaad ka shaqaysaan inaad xallin kartaan isku daya arrintaas marka arrintaas xallisaan ka bacdi ha noqoto oo dalka isu mari karo ama wax laga sheegi karo ha noqoto wax laisku yimaado dastuur iyo nabadgelyo laisku yimaado oo wax laga hadli karo laakiin hadda hadalkeeda ma bannaano mana laga hadli karo saas aawadeed adinkoo raalli ah dastuurka u kaadsada ha la xalliyo gobollada iyo degmooyinka iyo dalka intuu kooban yahay iyo dhibaatada kale gogo-ay dhib ka jiro ha la xalliyo markaas ka bacdi ha in noqoto wixii aad ka shaqaysaan oo nabadgelyo ah iyo dastuurka iyo waxaa la dhihi lahaa ha la dhaho laakiin hadda maya dadka habeenii maalin dhimanayo xaduudada ku jiro qarashkoodii aan loo diraynin waxba aan loo diraynin maxaan looyn agoontooda aan la daryeelayn dadka aan la diraynin dhufays ku wada jiro dhibaatada maalinba waatan kolkaas hadda ka soo baxdaba qaar baa la xabaalayaa waatan hadda taga isbitaalka xooga taga maxaan baraandir taga meel walbaba dadka isbitaallada taga dhaawicii iyo dhibaatadii baa taagan war ilaahay ka baqo sidaas aawadeed ilaahay ka baqa dastuurka u kaadsada xildhibaanow dalka iyo dadka ma fadhiya nabadgelyada ka shaqeeya oo nabadgelyada ilaahay baa keeni karee idinkana ugu daro ku tabaabashays inaad ka shaqaysaan nabadgelyada ka shaqaysaan ee dastuurkan waxaad la ordisaan u kaadiyaan leenahay anina weyn baa nahay dalka intaasoo dhan usoo halgamay joogo halgankaa sidaa ku jiro weli macnaha waxaan rabaa inaan dalka nabadaan ku noolaanaan rabaa cumrigeeda waxaan ku jiraa inaan nabadgelyo ku joognaan rabnaa oo nabadgelyo ku agaanaan rabnaa xoog baa lagu wada kala haystaa dhulalkii baa la kala haystaa xoog baa loo haystaa macnaha dastuur baa ku ordaysaan dastuur yaa loo xalinaya cidda loo xalinaya bal waxaan rabnaa inaad jawaabteeda nasiisaan oo tirahdaan ma dad shaksi ah mase waa dad oo jamca soomaaliyeed waaye jamca soomaaliyeed ma haysaan meesha lama hayo xamar baa kala xiriiran degmooyinku isma furno meel walba dhagax baa yaallo sidaas aawadeed ha la xalliyo dalka ha la xalliyo xalliska wax walba ugu horreeya nabadgelyada ugu horrayso ilaahay nabadan hana siiyo nabadii khayr baa waxaanu ku baaqaynaa in ilaahay nabadna siiyo ka bacdi madaxda iyo madaxweynaha iyo ummaddoona waxaan u baaqaynaa in ilaahay nabadana waafajiyo nabadda uu naga shaqeeyo ee dadkii u baahan in la xalliyo intaasaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa midaan hadda ka hadlayay weeye waa degman walba way taallaa wax sharcoo laga fulinayana ma laha waxa hadda weeye sharcigeeda lama soo qaadin gabdhihii baa la gubayaa haweenkii baa la kufsanayaa carruurihii baa la dilayaa waxbarashadii dhallinyaradii baa la gubayaa meel walba xaafad ka biyow ma laha hadday ka koonay inta ka dhexaysa xamar akoonihiisa meel walba jidka dhinac walba looga baxo 30 kilomitir 40 kilomitir waa 60 kilomitir ka koona ilaa gubadley ilaa iyo meesha dhanaane waa 60 kilomitir 60kaas kilomitir baa wax isu dhaqaaqay midna aan jirin inta ideed baa laga shaqayn laayay waa habeen walba lagu dhamaanaya oo shacabka lagu leynaya oo nabadgelyo aan ka jirin saas awgeed maadaama nabadgelyo aan ka jirin oo waxa kale oo soo wareeyay oo aad waxaan meesha la leeyahay masaajidka hadda la leeyahay waxa ku haray oo ana jimcaale oo la leeyahay dadka macnaa qofka baasaboor wata ama qof kale loo kala midab kala sooxa waa waxaan weli soo marin oo la leeyahay madka muslimiinta kuma wada tukan karaan la leeyahay waxa weeye hadda ka hor baa waxa la jiray looma sinna rag iyo dumarka
maxamed saad barraa lagu eedayn jira la jira raggii dumarka uma sinaaqa war raggii dumarka haqa waxay ugu saman yihiin waa midda ay ugu saman yihiin oo raggii dumarka ay ugu sinaan karaan waa shaqada iyo xoogsanta maane uma sinno midda macnaha raganimada iyo dumarnimada uma sinno waa la ogyahay laakiin middaa kale ay ku sinnayn saas aawadeed adinka oo xaneen wax walba taxgelinayo hal la qiimeeyo arrimaha ciidamada iyo nabadgelyada iyo hal la sugo amnigaas anaga taasaan leenahay macnaha amniga ma jirto magaalada waa qadsan tahay amniga hal la sugo oo dadka agoomaha iyo carruuraha iyo dadka isaga dawladda xalliso inta caalamka looga dhaqdo diinta muslimkana in la sii kala faraqeeyo oo laga kala saaro waa baahno hadda ka hor baa waxaa la yidhi aniga nin weyn baan ahay ilaa macnaha tiro 70 ku jiro hadda ka hor baa waxaa la yidhi dawladdii hore oo milatarigeed waxaa lagu faanan jiray in la yidhaha raggii dumarka uma sinno xaqa uma sinno la yidhaha war diinta waa loo siman yahay laakiin xaqa kale aynu u sinnayn dhaxalka midna 50 baa la yidhi midna 100 baa la yidhi 150 baa loo kala saara laakiin diinta muslimka waa loo siman yahay dadka waxaa kala sooca midab kala sooca la samaynayo oo hadda diinta xaggeeda lagu samaynayo ma fiicno mana noqoto diinta waa diinta muslimka rag iyo dumarba waa qaadanayaan laakiin ha laga daayo kala sooca ee ah ninka baasboor aan wadanin iyo nin daad weyn iyo nin yar weyn waxa la leeyahay laga daayo ma amnigeeda maayo oo ninka la yiraahdo matal cali jamcaale suurtagal maaha say ila tahay aniga aqligayga ila tahay suurtagal maaha in lagu kala saaro dadka oo la yiraahdo baasboor qof aan wadanin qof aqoonsi wadanin qof aan masaajid ma geli karin in la yiraahdo suurtagal maaha ama la yiraahdo dumarkaan ka raxadooda waa in loo yeelaa meel ay iga leeyihiin oo ay ku tukadaan oo ay ragga ay ku daba tukadaan maaha imaam inay noqonayaan waa inay ku daba tukadaan oo ay salaada rabbi ay wax ka tukadaan weey in la yiraahdo ma geli karaan suurtagal maaha macna oo salaada ma geli karaan la yiraahdo oo la yiraahdo muxuu ahaa salaada ma qaadan karaan la yiraahdo oo la yiraahdo kubaax bay adeegsan karaan waxaan u aragnaa madax socon inay tahay arrintaas idaa suurtagal maaha masaajidka arrimaha uu baajiyey oo baaqa uu ku sameeyey ha ka noqdeenaan leenahay sababta haweenka waa in loo sameeyaa meel ay ku tukadaan waa meel ay ku cibaadaystaan waa bil ramadaan raggana uu ku cibaadaysto laakiin baarisu way jirta oo amniga waa yar yahay laakiin amnigaas oo yar waa in la sugaa laakiin amnigeeda oo dadka asaga way bannaanta in la sugo laakiin in la yidhaahdo dumarna kuma tukan karaan dad yarna kuma tukan karo qof aan baasaboor wadan dadka ajanabi maan annaga ajanabi ma aha xamar meesha xamar wey ajanabi ma aha waa dalkii soomaaliya waaye waa meesha magaalada xudunteedii wey waa xamar waxaan qabaa inaan la kala saarin oo dadka ilaahay diinta ilaahay wahayn in loo furo diinta ay u habboon tahay mooga in laga xayiro uma baahno assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaa masaajidkan intaasaan u cibaadaysanayaa inta kale waxaan rabnaa masaajid waqtiga hadda la joogaa inaan cibaadaysanaan rabnaa dadka kala saarka ah nagala daayo aniga hadda baasaboorka ma wato haddii la yidhahdo baasaboorkaa ku ogol baasaboor waa wataa laakiin haddaan idhaha baasaboorkaan ku aadayaa baasaboorka maajadhibaan ah waa xamar meeshaan ku aadayay xagan baasaboor ku qaadanayaa baasaboor markaan dal ka baxayaan qaadanaya laakiin markaan jooga maya midda kale meelaha cibaadaysan bisha ramadaanka lagu jiraa dawladda hoose waxaan u sheegaynaa iyadana inay jidadka ay furto oo jidadka ay u weesho meelo la maro loo yeelo oo amniga ay ilaaliyaan oo dadka amnigiisana la ilaaliya intaasna iyagana waa dawladda hoose aan barayaa iyo gobolka waa intaas oo dhan